استاذ كور ما جرو هذا waxaan weydiinayay Axmed Kiwe horay keegu ma jarino aroosyada la jaraa wala marka waxaan rabaa in la sheego sida loo jaro insha Allah caawinayna anaga ku caawinayna araw soo jarnay dhowr jeer oo doon wax yar كان بالصار أنا لا قوانا سا أنا إلا قوانا سا وان شرينا نحن لا يكلا شريا كدنا استاذ استاذ نحن كشرا سا إن شاء الله هذا نمر كلا شرا سا عاوز شرا حتى أنت كشرا تدور بس صور ترى أنقلها هم بوشرا سا كدنا رجعت أقول لنا صور ك نبرة بسم الله صعب كذا نقال كدان صعب نقال ما هذا ما سنتين أستاذ I love me ما وجهه أستاذ كعلو زارتي ولي أحمد شرم بيري ولي أحمد قارب بيري صور كيس ما شاء الله مع بعض طبعا خاصنا ياخذنا شرب استاذك افكا وكلنا ان شاء الله وضعنا دونا دالنا واحد صعب Samir baan ku noolaan adoon
siisa sabaya samir baan ku noolaan adoo nabada soo noqo nasiib waxaan la soo kulaa nabadgelyo nabadiino iyo nooli kulantee nabadgelyo nabadiino iyo nooli kulantee naftaan siisa sabaya samir baan ku noolaan adoo nabada soo noqo nasiib waxaan la soo kulaa Abshir magacna waa naadaan maanta ku badiyo helay aadina maasan waxay ku bilaabmaysaa ardaydan milgaha iyo maamulkeena waxaan iyo macallimiinta sharafta leh inta madasha joogtiyo marti sharafta oo idil marka hore salaam guud marka xiga macbuudkii makhluuq oo dhan uu ina maamulaya mahad oo dhan gaarsaday marka xiga asxaabtii madashan qurxoon ee maamuuska miidhana laha maamulkeedan mahad gaar leeyahay haddii aan muraadkiyo tixda maanta aan wada macnaheeda aan galo dadka kula macaamila ee ku meelan nolosha waxa ugu martabad weyn ruuxa macallinkaaga ee maadi iyo diiniba maaligeen intuu baray maankiisa uu dhigay aad ka miirataayo isna kuu macneeye abshir macallinkeeno mar kalena doctoro inaad tahay misbaax iyo mid bulshada ku weyn oo meel sare ku yaallo allaheen macbuud iyo aqoon kugu manayso maskaxdaada ay taal waa marag madoonte waxaa wada makhraatiya midhahaad ka beerto maadadaadna baraysay muddo badan akrinaysay noo kala macnaysay maskaxdaa ku doogto marna lama ilaawaan middaa waxaan ku darayaa mar haddaad socdaalto maanta aad tagayso meel kale u baxayso rabbi marinka kuu sahal dadku wada ma dhaafaan iyo marxabeeyo kuu noqoy mawlahay ku maamuus cilmigana manfaca iyo kaaga yeel midaan gurin salaamullaahi calaykum lambar labo waxa weeye haddana waan ku faraxsanahay dee in waxa weeye saaxiibkay xafladda intaa la eg halkaa waxyo badan baa iga muuqaan ma aqaan madoosahay la socdeen anyway 5 galabnimo waa laga imaanayaa marka si aan wixii aan stress looga qaadin baan waxaan sameyn jirnay banooni baan ciyaar jirnay marka garoon dhan baan waxa weeye diyaarnay kadibna marka wixii nala ciyaari kara galab walba anagu tiimkayaga diyaar bahaa group kalena waa diyaarsanay marka waxa weeye markaan stresska iska soo bi'ino marka kadib baan wax akhriso farsan jirnay marka ragii yani waxaan iskoolkooda waxaan jaamacadda la dhigan jiray dad badan oo maar dadkan Soomaali jooga loo yaqaan qaybta bahda media wadani media aad baan ugu mahadcelinaynaa hawlwadeennada iyo waxa weeyaan shaqada adag ay hayaan aad baan kaga mahadcelinaynaa ay geliyeen inay Dr. Abshir caawa sagootiyaan waxaana ku faraxsanahay isku duubnidooda iyo isku xirnaantooda iyo waqtiga ay geliyeen inay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مامل كجامعة معلمين تشرفت له قبن قابياشي إسئماتي كان
sida wanaagsan loo soo agaasimay iyo dhammaan ardayda ka kala timi departmentiska jaamacadda iyo si gooni ah ardayda department of lab ka tirsan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii xoogaa little bit nervous baan ahay xoogaa because ma dhicin weligay intaan noolaa kolley intaan soo jiray isu imaatin intan oo kale la eego aniga laygu maamuusayo ma dhicin maalinkii koowaad sanad ka hor aan Garowe imanayana I never expected maanan rajaynayn in sidan oo kale maalin uun lay maamuusi doono sanad ka hor markaan runtii horta waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo jaamacadda Boosaaso ka sokow fursadda muhiimka ah ay Garowe ina ku siisay oo 10 sano ka hor laga yaabee inaysan fursadani jirin dad fara badanna 10 sano ka hor waqtiyada ay secondary-ga dhameeyeen ay waxbarasho la'aan ku dhacday aan awoodin inay wadankiisa dabadiisa aadaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo jaamacadda Boosaaso fursaddan dahabiga ah halka inoo keentay oo runtii dhamaanteen aan ka wada faa'iideysanay waxaan rabaa sidoo kale inaan uga mahad celiyo fursadda ay ii siisay in aan isbaranno ardadan qiimaha badan aniga oo runtii ardayda jaamacadda Boosaaso dhigata departmentyadeeda kala duwan xushmad fara badan u haya haddana waxaan rabaa inaan si gooni u maamuuso ardayda department of shaybaarka dhigata caawan Dr. Abshir kaftamaynayo marka halka taagnayna waxaan ku lahaa kulli jaamacadda departmentyo badan oo muhiim ah wax ka dhigtay isaga iyo Dr. Abdullah waan ku yiri laakiin waxa idinka maqan course waan ogahay in department of lab ka u badnayn wax fara badan ay hadda ogeyn baa idinka maqanay intaad maamulka jaamacadda u dhigtaan waliba dhinka idinku codsada inaad departmentiga bal wuxuuna aad u dhigtaan marka runtii aniga qiimo weyn baan idin hayaa oo aan la soo koobi karin ilaa maalinkii aan jaamacadda imi ilaa maanta oo ay gabagaba tahay runtii aniga un baa dareemi kara hadda waxaan dareemayo way adag tahay inaan dhaho laakiin insha Allah mana noqon doonto final goodbye-gi insha Allah waan isku soo noqon doonaa inagoo nabad ah midda kaliya aan rabo dardaaranka kaliya oo aan rabo inaan idin sheego waxa ay tahay fursaddan aad haysataan waa fursad dahabi ah runtii waxa kaliya oo fahmi kara maanta qofka aan haysan fursadaha waxbarashadu ma aha fursad mar walba taagan laakiin waxa fursadda shaqada mar walba waa la helaa waxaan marka idin kula dardaarmayaa in aad fursadda amaanta haysaan horta wax badan oo wanaag samaysaan oo aan anigu ogeyn marka horta waxaan aad samaysaan hadeer aad samaynaysaan oo aan anigu ogeyn hadeer barta aad samaynaysaan ka sii wada waxaan saa u leeyahay classeska ee laboratory-ga aan wax u dhigo si gooniya markaan uga hadlo runtii qiimo fara badan aad idinku laga yaabo inaad ogeyn aan ogahay baa jira marka waxa aad samaynaysaan harta barta ka sii wada waxa aan ogahay iyo waxa aanan ogeyn ba aad hadda samaynaysaan barta ka sii wada insha Allah ta'ala inta aan Garowe ka hor iman runtii inta aan Garowe iman ka hor dhaxaa Dr. Abshir iyo Dr. Abdullah sida ay sheegeen ku noqon maayo inta Abdullah sheegay iyo inta Dr. Abshir ba sheegayba baa jirta laakiin markaan Garowe imi deesma lahayn saaxiibo kale oo fiican baad helaysaa laakiin rag badan oo aan xitaa jabad wada degnay baa jira oo runtii aan ma garanaysaa runtii qiimo weyn agteeda ku leh oo aan hadda adag tahayba sida aan macnaha u kala fogaanayno insha Allah annagu aan mar walba kala fogaanayno isku soo noqon doona haddana inaan xoogaa waqti kooban kala tagno maba jirto fursad aan jaamacadda Boosaaso uga tagi lahaa haddii aan fursad waxbarasho heli lahayn oo kale maba dhici karto fursad kale oo ii banaanayd aan jaamacadda Boosaaso uga tagi lahaa waxa kale uga kaxeeyana ay tahay inaan waxbarasho kala helo waxaan rabaa inaan hadalka dheeraynayn am little bit emotional marka waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan idin mahadiyo ilaahay idin sharfo waxa weeyaan runtii qulubteeda baad ku jiri doontaan wax badan ma kala fogaanayno waa isku soo noqon doonaa insha Allah ta'ala ilaahay idin sharfo in fara badan anigana runtii this means a lot to me this is macnaha this one wax weyn bay aniga ii tahay marka aad iyo aad baan idinku mahadinayaa dhamaantiin anigoo departmentiska jaamacadda runtii departmenti badan wax soo dhigay oo wada mahadinaya si gooni ah oo from deep my heart ka timi waxaan rabaa inaan ugu mahadiyo maamulka madaxa department of lab oo runtii Ahmed Kilwe oo runtii si fiican departmentiga igu soo dhaweeyay ilaa maanta ilaa maalinkiina wajigii koowaad aan isku aragnay iyo ardayda department of lab si gooni ah oo baan ugu mahadinayaa runtii ilaahay sharfo intaas aan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh